gobolka dhammaan meeyarka madaxweynaha mas'uuliyiinta kale halka joogta haweenweynaha iyo dhalinyarada halka isku tiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta waxay raacdaa halkan runtii kafta wanaagsan oo la isu turxalay waa ayaa laga yiri waxaanu isku nimid waxa weeyaan xilwareejintii labada xogaye cali xasan cawaale iyo mawlid kayse maxamuud oo maanta aan xog u kala wareejinayno marka hore waxa aan ku soo dhaweynaynaa ducana u raacanaynaa xogayaha cusub waxaaynu sii sawooteynaa ducana raacanaynaa xogayihii hore waanu leenahay meeshaa mid ka wanaagsan allaha ku geeyo runtii waajibaad gudatay waad gudatay ka kalena wax lagaa sugaya lagaa filaya shaqo horle oo cusub inaad xidhiidhiso wasaaraddii arrimaha gudaha iyo dowladdii hoose inaad dardargeliso oo aad halkii kasii amba qaado hawlihii halkii kaga tegey xogayihii hore dowladda hoose oo aad dhammaystirtaan tiim weerna kula shaqayso meeyarka iyo madaxweynaha runtii duuxudii ugu balaadnaa iyo hadalladii ugu cuslaa hadda waxa ka yimid ku-xigeenka duqa caasimadda oo aan abdi u ahay xaaji cabdullaaba waxa la yidhi ninka hadalkiisa oo jeclaysto waxa codda doona ha ahaado wuxuu yidhaahdaa waninkaas xaaji muxuu ahaa markaasuu yidhahdaa waa adeer baan u ahay ninka waxaan leeyahay abdibaan u ahay runtii laakiin hadalka ninka dambeeyey ruxubkii hadalkii isaga weeye waxaan leeyahay ciddii tirmas wanaagsan oo hadashay dhammaanba golayaasha deegaanka waa inay la shaqeeyaan muxuu ahaa farasaabada waa inay la shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha waa inaynu isku xidhnaanaa si aynu u hanano xilka laynoo idmaday oo uu noo idmaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya axmed maxamed maxamuud aynu u fulinno himiladii xisbiga kulmiye ee uu hogaaminayay madaxweynaheedu waa in aynu isku duubni midnimo iyo wada shaqayn muujinnaa oo aynu ummadda aynu u shaqaynayna u muujinnaa waxaa laynooga baahan yahay sida la sheegay waxa weeye maanta dalkeedu waxaynu maraynaa xaalad abaara xaalada baynu maraynaa waxaan leeyahay qolooyinka xisbiyada ah ha yareeyaan ha joogiyaan ha dhimaan hadallada la isku maranaya hawada xalay waxaan maqlaayay niman waaweyn oo madax xisbiya oo hanjabaya oo le ka dhacda waa laga sheekayn doona ereyada caynkaas waxay muujinayaan wax alla wixii dhaca maanta ee ka dhaca dalkaasi waxaanu u tirinaynaa oonu u ogaan doona oo loo qabsanaya waxa weeye ragga halkaa ka hadla sababtoo ah waxay dikleer gareeyeen oy caddeeyeen oy ku dhawaaqeen dagaal bay ku dhawaaqeen wax laga aqbalayana maaha rag waaweyn oo xisbiyada soo shaqayn jiray weeye cadhaa ka buuxda nimankii kulmiye ka tegay ee ku wareegay waddani arki maysid in waddani inta badan oo hadlaayo oo caytamaya ragga caytamaya ee caloosha xun leh ee dalka doonaya inay burburiyaan waa ashkhaastii markii horena xisbiga kulmiye wareerisay iminkana doonaysa inay wareeriso waddani waxaanu leenahay idiin adkaysan mayno idinkana aqbali mayno howlaha ka wadaan dalka gudihiisa iyo ereyada ka soo baxaya afkiina waxaanu leenahay waanu idin maqlaynaa waanu idin dhegaysanaynaa wixii ka soo baxaa afkiina aanu idinku qaadaynaa inan yaroo la xidhay oo maxkamadda horgeeyey intaa laga sameeya miyay tahay maxkamadaa maxay nagu samaysan sharciga maxay nagu samaysan in la isorgeeyo soo maaha cidda xaaraanu ka yahay in xabs ama maxkamad la geeyo waayo qofka muxuu ahaaye ka sarreeya een geyin in maxkamadda horgeeyo waa kuma qofka dembi sameeya ee damacsan inaan lala hadlin waa kuma waxaanu leenahay idinka aqbali mayno waxaanu idin leenahay ka muxuu aha gaabsada ka noqda ereyada foosha xule ee ummadda maqashiinaysaan ee dhawada maqashiinaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi